sanadku waa 1933 waddankuna waa Jarmalka. dagaalkii koowaad ee adduunka baa dhamaaday waxaana la saxay heshiiskii Versailles. waxaa lagu qasbay Germany iyo xulafadeeda inay bixiyaan magdhow dhaqaalihiisu dhan yahay $61 bilyan. waxaa waddankaas ka dhacay sicir bar. waddankii uu degi waayey dhaqaale xumo iyo dowladda Jarmalka oo awoodii lagu yaqaanay aan lahayn. waddanka Jarmalka waxaa ka dhacay shaqaalo la'aan iyo wax soo saar la'aan. Janaayo 1933 waxaa la doortay hogaamiye cusub oo ka yimid xisbi cusub. hogaamiyahaas wuxuu ahaa Adolf Hitler. sicir barku saameyn weyn oo ballaaran buu ku leeyahay taariikhda. sicir barku wuxuu sababaa dowladda ama dowladaha markaas horyaalka u ah dunida inuu wuuqo awoodooda sidii ku dhacday Jarmalka dagaalkii koowaad ee dunida ka bacdi. bishii Febraayo 24 2022 markii Ruushku go'aansaday inuu dagaal ku qaado waddanka Ukraine. dagaalkaas wuxuu sababay sicir bar saameyn weyn ku yeeshay dunida oo weli socda. hadda adduunka sicir bar ka jira wuxuu ka badan yahay 7%. maanta qiimaha maciishada daruuriga waxay kor u kacday 10%. shidaalka qiimihiisu wuxuu kor u kacay 8%. in ka badan 50 waddan baa sanadkan doorasho ka dhici doonta. sidee buu u saamayn doonaa sicir barku doorashooyinkaas? waddanka Mareykanka waxaa ka dhici doona doorasho bisha November oo ahayn doorasho mid madaxweyne lagu dooranayo laakiin lagu dooranayo xildhibaano iyo senataryo. sidee buu u saamayn doonaa sicir barku xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Biden? tusaale, Jimmy Carter wuxuu ahaa madaxweynihii 39 ee waddanka Mareykanka. markuu madaxweyne ahaa waddankii waxaa ka dhacay shaqaale la'aan, shidaalkii iyo maciishadii baa qiimahoodii kor u kaceen. wuxuu ku jiray ololo siyaasadeed si mar labaad loo doorto madaxweyne ahaan. sicir bara daraaddiis waa laga guulaystay Jimmy Carter. nidaam dowladeedka maanta ka jira dunida ayaa u kala baxa dimuqraadiga, boqortooyo, kalitalis. sicir barku waa waxa keliya oo si xooggan u saamayn kara nidaam dowladeed kasta oo maanta dunida ka jira. hadda sicir barku wuxuu dumiyey dowladdii ka jirtay waddanka Sri Lanka. waddankaas waxaa la waayey cuntadii, daawadii iyo shidaalkii. waxaa kaloo jira waddamo badan oo liqliiqanaya sida Masar, Turki, Ethiopia, Kenya iyo waddamo kale oo ku kala yaala Central iyo South America. dowladaha wax soo saara qaarkood ayaa waxay mamnuuceen waxyaalaha ay soo saareen inaysan gebiba ka bixin waddamadooda. waxa la mamnuucay waxaa ka mid ah sida sonkorta, burka iyo saliidda. dowladda Urdanka ee Soomaaliya sidee bay u maalayn doontaa sicir bararkan ku habsaday dunida oo dhan? waddamada samafalka ku deeqi jiray Soomaaliya ma awoodi doonaan inay sii wadaan inay sii bixiyaan samafalkii ay ku taakuleen jireen waddanka Soomaaliya?